Waxa uu yidhi wiilkan, waxaan ku jiray waqtigii qaangaarka ama shabaabnimada, waxaana aad u jeclaa bannaanka, waana necbanaan jiray inaan guriga joogo. Balan ayay isku dhiibi jirtay. Waxaan ku soo laaban jiray guriga waqti dambe. Hooyaday aad ayay iigu qaylin jirtay, waana dhibsan jiray hadalkeeda. Ayadana walwal iyo hurdo la'aan ayaan ku dhici jirtay. Anigana waxaan iska ilaalin jiray inaan guriga ku laabto ilaa ay ka seexato hooyaday. Hooyo waxa ay gaartay heer ay iska seexato, laakiin warqad ayay ii qori jirtay oo ay igu dhejin jirtay kushiinka hoostiisa, oo ay ku qoran tahay cuntada meesha ii dhigan tahay iyo nooca cunto ay tahay. Waxaan sidaas ku socdaba oo habeenkii iska wareegayo, maalintiina iska hurdo. Heer waxay gaartay hooyaday xitaa ay warqad iigu soo qorto, dharka kaa wasakhda ah ii soo dhig bannaanka si aan kugu dhaqo subaxdii. Yaa Allah, la yaab badanaa. Habeenkii dambe ayaan waqti hore guriga ku soo laabtay, mise waxaa ii dhegsan warqad ay ku qoran tahay in aad laygu baahan yahay, laakiin waqti aan ku sii akhriyo ma haysan oo hurdaa i haysay. Bannaanka ayaan ka soo casheeyey oo cunto uma baahnayn. Sariirta ayaan toos u tagay aniga oo aanan akhrin waxa ku qornaa warqadda, hurdada i haysay darteed. Waxaan hurdaba. Subaxdii ayaa waxa ii soo galay aabbahay oo ooynaya. Hurdadii ayuu iga kiciyey, misena waxa uu igu yidhi, hooyadaa way dhimatay, Allah u naxariisto. Ilaa laga caasayona waan ooynayey, waana ku dhegnaa. Laakiin maxay taraysaa markay dhimatay kadib oohin? Wuxuu yidhi, waxaan ku soo laabtay gurigii galabtii markii hooyo la duugay. Kadib waxaan ku dul dhacay sariirtii murug iyo naxdin awgeed. Laakiin si degdeg ah ayaa waxa igu soo dhacday oo qalbigayga soo galay warqaddii aan ka saxday xalay anigoo aanan akhrin hurdo darteed. Waxaan aaday kushiinkii, waan soo qabtay warqaddii waana akhriyey. Waxaana ku qornaa hadal ka duwan hadalladii hore. Hooyo, haddaad guriga ku soo laabato ikici, waayo waxaan dareemayaa xanuun. Si aad isbitaalka iigu qaado. Oohin badan ayaa iiga timid iyo murugo xad aan lahayn. Waalidku waxay naga mudan yihiin in loo ixsaan sameeyo inta aanay dhiman ka hor.